Tani waa arrin muhiim ah oo Soomaalidu ay dhayalsadaan intooda badan. Waa khatar mustaqbalka Soomaaliya mugdi sii gelin kara. Haddii gumaystihii dhulkeeni uu qaybiyay, maanta shirkadda caanka ah ee Google ayaa qaybo ka mid ah dhulka Soomaaliyeed siisay Itoobiya. Caabudwaaq, Goldogob, Xeraale iyo Balanbale oo ka tirsan gobollada Galgaduud iyo Mudug ayaa uu ku daray dhulka u calaamadeysan xadka Itoobiya. Taasi macnaheedu waa in dhulkaasi uu yahay ama uu noqon doono dhul Itoobiya ay leedahay. Shirkadda Google, gaar ahaan qaybta khariiradaha ama maapka ee loo yaqaan Google Map, oo ah halka kaliya ee hadda laga xaqiijiyo xuduudaha wadamada ay leeyihiin, ayaa khariirada Itoobiya waxay ku dartay magaalooyin waaweyn oo hor leh, kuwaasi oo aan ahayn kuwii gumaystihii uu horay u siiyay. Muuqaalkan aad arkaysaan waxa uu muujinayaa khariirada Soomaaliya oo ay banaanka ka yihiin magaalooyin waaweyn oo ku yaala gobollada Mudug iyo Galgaduud. Waa Caabudwaaq oo ku taala gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya. Sida aad arkaysaan, Caabudwaaq waxa uu maapkani ku darayaa dalka Itoobiya. Xariiqdaasi idiin muuqda ayaa kala qaybiya labada wadan ee Soomaaliya iyo Itoobiya. Laakiin waa xariiq ama xuduud aan sax ahayn, maadaama Itoobiya dhulkeeni ay qabto waxaan ugu yeernaa xuduud beenaad. Mar kale, magaalada Balanbale oo iyana ka tirsan gobolka Galgaduud ayaa uu ku daray inay ka tirsan tahay Itoobiya. Sidoo kale, waa Xeraale oo iyana dhinaca uu ka mariyay xariiqa kala qaybiya Soomaaliya iyo Itoobiya. Goldogob oo ah magaalo weyn oo ku taala gobolka Mudug, qaybta Puntland, ayaa sidoo kale ka mid ah magaalooyinka oo ay shirkadda Google ay siisay Itoobiya. Sida khariirada aad ka arki kartaan, waxa uu magaaladani oo ah magaalo weyni ka saaray xariiqa Soomaaliya waxa uuna raaciyay dhinaca Itoobiya. Intaasi kaliya ma aha, sidoo kale marka aad ku dhufato magaca magaalada ee meesha ka muuqda, tusaale Caabudwaaq, waxaa kuu muuqanaya inuu ku leeyahay waxay ka tirsan tahay Itoobiya. Taasina ma aha mid sax ah. Haddaba arrintan ayaa ah mid dhibaato weyn u keeni karta jiritaanka dalkeena Soomaaliya iyo dadkiisaba. Horay waxay Talyaani iyo Ingiriis ay bixiyeen dhulkeeni oo ay u qaybiyeen Itoobiya iyo Kenya. Laakiin maanta waxaa shirkadda Google ay bixinaysaa dhulkii Soomaaliyeed oo ay siisay Itoobiya. Tani waa dhul balaarsiga Itoobiya iyo damaca aan qarsooneen ee ay Soomaalidu ku wajahayso. Badaha iyo berigaba qaarkood ayay sheeganaysaa Itoobiya, sanado kadibna ay lahaan doontaa haddii aan waxba laga qaban. Waxaa ka dhalan kara arrintani in mustaqbalka ama sanadaha soo socda ay Itoobiya ku doodi karto in dhulkaasi ay iyadu leedahay, maadaama muddo caalamku uu ku tirinayay dhul Itoobiya ay leedahay oo ay Google-na xaqiijisay. Tusaale, haddii qof caddaan ahi ama dal kale ah uu isku dayo hadda inuu barto dhulka Itoobiya, waxa uu arkayaa in Caabudwaaq iyo Goldogob ay yihiin dhul Itoobiya ay leedahay. Arrintan khatarta leh ayaa waxaa laga hortegi karaa in hadda oo laga gaaro shirkadda Google Maps la ribood gareeyo oo loo sheego, ama ay dowladdu u qorto warqad ku socota Google si ay u saxaan qaladkaasi. Haddaba adigu aragtidaada sidee looga hortegi karaa? Muuqaalkana laag saar oo sii sheer garee si dad badan ay u ogaadaan arrintan.